ciidanku meel walba adduunka waxay leeyihiin qawaaniin gaar oo lagu ilaaliyo sababtaa laftooda hurayaan inteena kale meelaha fadhida oo dhan waa dad adeegayaan nahay oo shaqaynaya laakiin wax naftiisa huraya ciidanka jira oo dhimanaya saa daraaddeed ilaalin ka duwan dadka kale wuu mudan yahay ciidanku waxaan ku ammaanayaa oo aan ugu bogaadinayaa ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida laamaha amniga qaybahooda kala duwan shaqada fiican ay hayaan ay ka hayaan gudaha dowladda deegaanka Soomaalida waxaan ognahay waxa la huro ee ugu qaalisan inuu yahay nafta bini'aadanka marka wiilashaas iyo gabdhahaba kuwa naftooda inoo horay maalin walba u taagan inay ilaaliyaan oo inaga kala ilaaliyaan dadkeena oo danahooda ka shaqeeyaan way mudan runtii in la amaano oo la bogaadiyo sidoo kale shacabka in iyagana lagu dhiirigeliyo inay la shaqeeyaan oo ciidamada iyo hay'adaha ammaanka oo iyaga u taagan dantooda waxaanu nahay ilaaliyaha bulshada waxaa jira dad nolosha ka dhacay oo iyagu baraha bulshada wax mooda oo waxyaalo aan jirin soo qora oo been abuur sameeya oo mar walba iyagu intaa macnaha ku dhaqdhaqaaqo oo ku nool laakiin nolosha si dhaba markii loo hadlo waa dad macnaha nolosha ka dhacay dowladda deegaanka Soomaalidu ama booliska dowladda deegaanka Soomaalidu waxa uu mar walba diyaar u yahay cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso shacabka dowladda deegaanka Soomaalida naftooda iyo hantidooda inay naf iyo maalba u hurayaan antaas markhaatina marar badan oo u arkeen ilaa haddana way u taagan yihiin waxaan ognahay wax kasta oo la qabto booliska cidda la qabanaysa inay tahay bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo la kala saareen qaybaheeda kala duwan rag iyo dumarba taasna mar labaad waxaan ku dhiirigelinayaa macnaha inay siday booliska ula shaqeyn jireen ay ula shaqeeyaan oo si fiican ula shaqeeyaan cid kasta oo isku dayda inay carqalad samayso ama bulshada dhibaataysana sharciga la marin sareynta sharciga ayaa sareysa cidna sharciga kama sareyso cid kasta oo isku dayda inay hantida shacabka iyo naftooda ay dhibaatayso isku dayda sharciga wax ka qaban waa la qaban booliska gacanta ku dhigi xeeraalinta loo gudbin maxkamaduna go'aamaysin marka shacabka waxaan fariin kale u farayaa inay si dhow ula shaqeeyaan booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo hay'adaha nabadgelyada taas oo mar walba dambiilaha ama qofka eedeysanaha ee dhibaato geysta marka la qabanayo uu yahay cidda macnaha tooshka dhabarka kaga haysa u shacabka yahay marka waan idinku mahad celinayaa ummad ama bulsho lala shaqeeyo oo ka fiican shacabkeena dowladda deegaanka Soomaalida ma jirto waa shacab isku kalsoon waa shacab wanaagooda garanaya waa shacab xumaanta garanaya waa shacab isla halgama waa shacab macnaha kuwan nolosha ka dhacay garanaya waxa ay u soo wadaan xataa garanaya marka aad baan ugu mahad celinayaa bulshada dowladda deegaanka Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaana leeyahay iska ilaaliya kuwa aan shacabka meel la geynaynin waxana u taraynin gurina aan u dhisi karin wada aan ka hagaajin karin biyo aan u sameyn karin oo daalay oo nolosha ka dhacay inaad iska ilaalisaan oo aad la halgantaan waliba ayaan idinka codsanayaa bulshada dowladda deegaanka Soomaalida mar badan waxaad arkaysaa ciidanka hadda aan ka sheekeynayno oo maanta halkan ay fadhino inaan nabad ku joogno ka shaqeynaya oo deegaankeena ballaaran gudihiisa iyo xuduudihiisaba aynu ku hurudno oo aan ku seexanayno qofka isagoo dan gaar ah leh oo ama damac yar oo gaar ah ku jiro ama shakhsi diidadiisa
isagoo intaa eegaya ciidanka noocaasa oo markii aad eegto duruufaha ay ku shaqeynayaan aad adag yihiin oo taan sheegaya oo qof isagu hadduu caruur lahaa laga yaabo caruurta inuuna la joogin hadduu dhalinyaro ahaa wax badan oo noloshiisa gaarka ah wanaajin lahaa ka tegayo danta caamka ka shaqeynaya qofka isagu siyaasadeynaya ee dan gaara uu leeyahay isagoo eegaya suura xumeynaya ciidamada guud ahaan ama gaar ahaanba arrintaas waa fariin runtii aan u diray oo cidda noocaas sameynaysa waa cid runtii aan shaqo fiican hayn shaqo fiican ma hayso sharafna uma aha dadniman u aha marka dareenka noocaas in la iska daayo waad arkaysaa marar badan ama media ha noqoto ama siyaabo kale ha noqoto qofku adduunka oo dhan way ka jirtaa hay'adaha ammaanka meel walba wadamada ilbaxay iyo kuwaan ilbixin hay'adaha ammaanku waa khad cagaaran waa khad cas weeyaan oo aan la taabanin qof isaga kuu dhimanaya oo wixii ugu qaalisanaa ilaahay qofka bini'aadamkaasi oo naftiisa hayd isaga kuu huraya oo waxa caam ka shaqeynaya waxa caamka adigu inaad suuro xumayso oo waxa weey aad siyaasadayso runtii wax qurux badan ma aha loomana dul qaadanayo oo waxa weeyaan in loo dul qaadanayna dee sax ma noqonayso qofka noocaasa ama ha weynaado ama ha yaraado ama rag ha aado ama dumar ha aadee dhaqanada caasa qofka caadaystay ama caadaysta talaabo sharciga laga qaadaya looma dul qaadanayo wixii siyaasadda waa la isku dhaliili karaa bini'aadamku dhaliilaa uu leeyahay cid dhamaystiran ma jirto laakiin qofka naftiisa ku horaya ee adiga ee shaqada haya in lagu mashquulo oo la soo ruxumeeyo arrintaas ma fiicna wax la aqbali karana maaha waa in laga wantoobo la iska daayo waan uga naseexaynaynaa dadka waxa sameynayna dagaalanka dadka fidnada wada iyo kooxaha abaabulan ee isku dayaya mar walba inay qas abuuraan waxaa loo baahan yahay si fiican looga hortago waayadii waad ogtihiin gacayaadka iyaguna in hay'adaha amniga lagu sumcadilo laga shaqeynayay in dadka maaragtay sharasha lagu laayo in maaragtay dhibaatooyin jiraan arrimo laga shaqeynaya arrimo siyaasadeed baa dhacdooyin way dhici karaan xukuumaddu way imaanaysaa wuu jiri karaa askari khaldama wuu jiri karaa shacab khaldama wuu jiri karaa hoggaan khaldama waxaasoo dhan waa qayb ka mid a nolosha waa la maareeya waa la baaraa go-aan iyo xal baa laga gaadha maanta saxaafaddii baa xora shacabkii baa xora cid maanta intay faldambiyeen barayna geysato ku badbaadi karta ama loo xilqarin karaa ma jirto waad ogtii marka iyadoo sidaa tahay haddana hay-adaha amniga oo kale in si gaara loo ilaaliyaan farayaa dadka siyaasiyiinta sheeganaya hay-adaha amnigu waa kuwa dadku ay ku seexdaan wixii siyaasad ah ee siyaasi laga sheegayo waxaas waa gaar laakiin dalalka adduunka o dhan meel walba hay-adaha amniga si gaara loo ilaaliya hay-adaha amniga si gaara loo ilaaliya xukuumadduna uma dul qaadanayso cid walba oo sumcaddil khalada inay ku samayso isku dayda hay-adaha amniga taa in la ogaada loo baahan yahay ilaahay baa nabadgelyada ina siiyey alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxyaalo khatara oo fara badan ayaa iska dhici kara deegaanku aad buu ballaaran yahay warxumo tashiil fara badan baa iska iman kara taa waxaa loo baahan yahay inaydaan dheg jalaq loo siin cid kasta oo sharciga ku xadgudubtana sharciga la mariyo cid kasta oo isku dayda hantida shacabka inay waxyeelaysana in shacabka in iyadana sharciga la mariyo sharciga cidi kama sareyso hadduu boolis wax sameeyo waa la qaban hadduu cid kale oo macnaha bulshada dhexdeeda yimaadana waa loo sameeyaa sharciga cid kasta oo dhibaato samaysana sharciga waa loo sameeyaa oo sharciga unbaa la marin marka dadkan waxaan aad idinkula dardaarmaya dadkan inaad ka fogaataan oo idaan ku milmin bulshadu inayna ku milmin ay dadkan mar walba isku dayaya inay bulshada wax beena u sheegaan inay been yihiin wayna og yihiin marka qofka maskaxdiisu ayna ku fillayn hebel baa wax soo qoray iyo hebel baa wax yidhi ah taa inaad ka feejignaataan ayaa laydinka baahan yahay kuwaa laftooda sharcigaan marin doonaa cid kasta oo isku dayda bulshada inay in yar oo khalkhal geliso kama yeelayno in yar oo macnaha ku xun bulshada dawladda deegaanka Soomaalida ee nabadda ku naaloonaysa ciddii isku dayda inay dhibaato yar ay ka dhex abuurto sharciga la marin waa la qaban waajibaad ka laga leeyahay baa laga gudan marka dhammaan bulshada dawladda deegaanka Soomaalida iyo hay'adaha nabadgelyada oo dhan waxaan leeyahay gamcaha la isqabsado
nabadgelyada ha laga wada shaqeeyo bulshadu boolis waa inay noqoto booliskuna waa inuu bulshadii noqdo waa in hal meel laga soo wada jeedo qof naftiisa ku waraya oo mararka qaarkood markaa tagto oo aad safar gasho aan meel badan marto qof qarfa ku jira oo laga yaabo inuu maaragtay caruur leeyahay oo reer leeyahay oo daruufo waalid leeyahay oo haddana 24 ka halka u taagan inuu isla kuwii uu shaqeynay runtii ay kaga timaado culeysyo iyo waxyaalo markaa uu isagu jeclayn ama raali laga ahayn ama inagaba aynaan ku qanacsanayn runtii ma wanaagsan arintaas khad cagaaran way runtii ciidankeenu in la shaqeeyo waa laga khasban yahay danteena ku jirta in la xurmeeyo oo la karaameeyana waxa weeye danteena ku jirta marka ciidamada in la shaqeeyo si wanaagsan loo garab istaago awaamirtooda la qaato ciidamadaas iyo hay'adaha amniga ay noo noqdaan khad cagaaran meel aan la taaban karin oo halkaan la dhaafi karin fariinta shacabkan maartay ku booreenina waan ku waanina waan kula dardaarmaynaa maamaa baa jirto waxa la yiri police waa dadkiisa wax la qabe wax ka daran qabe looma xil qabe taa markaan macneeyo waa dadkiisa wax la qabo oo wuxuu la qabaa dhibaato iyo wanaag iyo wax walba wuxuu la qabaa bulshadiisa shacabkiisa uu ka soo dhex baxay ayuu la qabaa waa wax ka daran qaba oo meel kasta hadduu dabkaco iyaga isku tuuraya hadday xabadi dhacdo ama deegaanka dhibaato iyo wax ka dhac iyaga galaya waxay u horayaan naftooda iyo maalkooda oo wax ka daran qabe mar dadkiibay wax la qabaan marna waa wax ka daran qaba oo wax ka daran bay qabaan oo waa kuwa mar walba nafta iyo hantiba idin hore weeyaan kuwa idin hore weeyaan looma xilqabe markaynu leenahay tan hadda dab markuu hadda meesha ka kaco uu booliskii u horgalayo oo haddii xuduudaheena wax ka dhacaan uu booliskii u horgalayo naf iyo maalba lagu waayayo oo booliskii ku waayaan habeen iyo maalin iyo qorax iyo dhaxanba ay usoo jeedaan waxaa laga yaabaa boolisow idinkoo 48 saac soo jeeday oo u soo jeeday bulshada dawladda deegaanka Soomaalida haddana in la yiraahdo kuwii booliska ah halkan maray oo looma xil qabe idinku marnaba ammaana sugin police ammaan ma suga weeyaan isagu mar walba waa inuu ammaan sugin isagu waa inuu ogaado bulshadu inay isaga ku seexato ku soo toosto ku shaqo tagto yarta qorqorti iyo dadka saxaafadda ka hadla way u madax bannaan yihiin inay daliilaan wixii khalad jira dhibti dhacday inay sheegaan siday tahay inay u sheegaan wixii aragtidooda ka sheegaan laakiin si abaabulan inay u sumcad dilaan hay'adaha amniga lagama ogolaanayo talaabooyin kala qaaday dhawaanahana waxay caddeyn u ahayd in arrintaasi ay tahay khad casmi tahay oo la ogolay hay'adaha amniga wixii anaga joognaba anaga joognaa wixii maaragtay hadal iyo aflagaadiya anagaaba ku filan in madaxna laga sheego oo yiraahdo xukuumaddu kan ay samaysay iyo sidan weeye madaxweynuhu iyo waxaan taasaba noqon lahayd kolka wax ciidamadii loo gaaraa meeshii la yaalo taana in laga waantooba loo baahan yahay marka dhammaan bulshada dawladda deegaanka Soomaalida iyo hay'adaha nabadgelyada oo dhan waxaan leeyahay jamcaha la isqabsado nabadgelyada laga wada shaqeeyo bulshadu boolis waa inay noqoto booliskuna waa inuu bulshadii noqdo waa in hal meel laga soo wada jeedo deegaankeenu meel fiican buu marayaan 7 sano ee ugu dambeysay nabad iyo barwaaqo iyo horumar ayaynu ku jirnaa oo aynu ku soconaa taas cidii inaga carqaladaysa inaga oo isku duuban waa inaynu talaabo ka qaadno talaabo sharciga waafaqsan waa inaan ka qaadnaa marka waxa loo baahan yahay inaynu gacmaha isqabsano bulshada iyo hay'adaha nabadgelyada gaar ahaan booliska si dhow ay wada shaqeeyaan booliskuna inuu mar walba u adeego shacabkiisa hadduu xafiis fadhiyo hadduu socdo baalagudayga meel walba inuu ku qaabilo qof kasta
وكدونية إن لو فليو أما إن لا إيجو إن وح وكعبنايو وإن لقوا قابلا قاب كست وبوليس كتاعين كودة تاجن هادو دمائن كرا إسلام مركب وين هالك كودا مين هذا حفيظ بحثنا وين حفيظ كل جيب لكن أنا جاي ما قصية واحد ليلا ما شفته بوليس كو دم واحد قصية عبيد تتاجبوا إن برشة واحد قصية واحد كست والشعب كعبرة يا قصية مسؤولين كذا إيوه دمان والد كذا ويجي عنك سلام يا مركورة شقة إيوه ودوين كمان عنك كلا لنا ودوين إيوه تدفع مركز صريقة مركورة كلا لنا إنه أمة إيوه جديد كان هذا شقة إذا عاد بوفي عنها إيوه صفي عن كلا وضنا الحريها بين بكل السنين شقة إذا في عنها أمة إذا أنا غرب حنا عندنا حبة كمان كرنا إنه بحاول ده كران كيجا حريها بين بقول لك هاي أمة إذا حالات wadooyinka iyo amniga in ka hada wax ka khaldan ma jiro fiican yihiin waxay tahay marka hore wada shaqayntii booliska bulshadu hadii bulshadu booliska ku xidhan tahay dhibaato ma imanayso booliska bulshadu isku xidhayna wax xalqada oo imanayso ma jirto xaalada marka hore waxa weeyaan booliska inay isku xidhnaadaan iyo bulshadu ya saasay bulshadu nagu xidhan tahay amniga haday noqoto dhanka gaadiidka haday noqoto dhanka wadooyinka booliska iyo bulshadu isku xidhan yihiin xeer aad u weyn oo ka dhaxeeya marka boolisku waa inuu ogaado saaxiibka dhow cid alle inay bulshada tahay cid uu ka soo dhaxbaaxayna inay bulshada tahay cid uu u shaqeynaya waa inuu ogaado hooyadii iyo aabihii iyo walaashii iyo habaryartii iyo eedadii inay tahay ayaa looga baahaya marka inaad mar walba qancisaan oo qofku markuu ku yimaado mar walba xafiis hadaad fadhido iyo hadaad banaan maraysa waan ku celinayaa arrinta hadaad banaan marayso iyo hadaad xafiis joogtaba inaad si fiican bulshadii loo qanciyo waa in lagu qanciyo labiska waa in lagu qanciyo hadalka waa in lagu qanciyo sharciga cid kasta waan ku celina oo isku dayda inay carqalad iyo dhibaato iyo been la timaadaba ama jijigaha joogto ama magaalooyinka kale ha joogaan ama meel kale ha joogtay waa in dhinac laga maro sharcigana la mariyaa